عليكم أصحابتي بخير لما أنتوني سلامة قولي قبل سودا وادا مقايدة دينك أسكلا داد الشديد دينك أسكلا داد مسين دينك أسكلا إسكد أنا قد مقايدة مرشدة هل إسكلا ويسارتان وحودا داد كانوا dadka igu jiro waa hal subscribe oo yaraado hadda ay sarto qof kale ii saarto insha Allah dadka TikTok iyaga soo raac Facebook guriga ma leeyahay kuwa kale walaalahay fiirsadaan subscribe kale saar insha Allah like share idinka xaqina waa insha Allah billahi kalim isla fiirsano dhibaatada hadda u malayseen inay Soomaaliya kaliya ka jirto meel kasta dhibaatada Soomaaliya waa ku haysataa baleeraarka dadka Minnesota jooga dadka u haqal taagay inay lamada naas la nuuga wadanka hadda nabad ka dhigtay meel kasta nabad ay ku noqonayaan insha Allah billahi kalim wadankan hadaan dawladda hal dadkeena Soomaaliya beertaysanaada taas waa inay la socoto Soomaaliya aysan ka maqnaan Olsen Highway xaafada Hamble yiraahdo ayaan taaganahay marka waxa weeye waxaan u baahanahay dawladdu inay garabna siiso codkayga dhageysato yaani dhibaatada hadda maamo oo xaafada degan laba u timi saddex baa u timi way direen way daqreen wali waa jiiftaa waxa weeye dhaawac ay u geysteen baabuurkiina waa ka qaateen marka waxa weeye gabdho hore oo waxa jira idana saas oo kale xaafada looga qaatay baabuurtii iyo telefoonadii marka waxaan u baahanahay garab istaago nala caawimo baan dawladda ka codsanaynaa dhibaatada iyadana ay maqasho salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu in mudaaba waxaan ku jirnaa dhibaato xoog leh oo ma habeen walba nala soo weerarayo qofkii sideedaad waa qofka dhaawaca loo geystay gabar la yiraahdo Maryan 2 saac oo qoraxda soo jeeday dibku wuxuu ku dhacay nabar baa lagu dhuftay 3 qodob baa la soo tolay isbitaal baa lagu la carray ambulance baa loo keenay waana qofkii toddobaad oo dibka loo geysanayo marka waxaan codsanaynaa maayarka ka codsanaynaa inuu baahidayada wax ka qabto labadan bildin oo halkan ban isku leeyahay security ma qabno police male waxa kale oo noo dheer guryaha neeto Park Plaza waxay leeyihiin central AC bay leeyihiin waa laga xirtaa office-ka waa qabow dadka bildinka degan cadaab baa adduunka loogu soo saaray xaqna ma aha waa in kambaniyada la hadlaa oo laga dhiciyaa haddaad tihiin wiilasheena Soomaalida ah ugu dhisaan baahideena maayarka iyo konsolada. We have a bunch of incidents that have been happening in the Heritage and Harrison community with people attacking our adduunka loogu soo saaray xaqna ma aha waa in kambaniyada la hadlaa oo laga dhiciyaa haddaad tihiin wiilasheena Soomaalida ah so we could stand up. This has been happening all across 4 sano oo la soo dhaafayna dhibaatada waa ku jirnay waxaan arkaynay gawaari waxay yihiin aan garanaynin oo baarkinada iska galaya waxaan arkaynay meesha qashinka oo lagu daadinayo cirbadaha lagu daadinayo waxaan arkaynay dad aan garanaynin oo taagan maxaa la dhihi jiray xaafadayada wax badan oo cabsi ah baan haysay office emergency meelaan ka wacana malahan office-ka hadaan wacno meelaan ugu dhaafno message malahan Allahumma musta'an xafiiska markii rabo wuu furan yahay markii kale waa xiran yahay horta xaalad sidaas aan ku soo jirnay markii hore laakiin hadda hawshii waa soo dhaaftay sidii hore ooba naftayadii baa naloogu imaaday iyo maalkayagii baa naloogu imaaday meel baabuurkii baarkinka ma dhigan kartid xaafad inta guri ka soo baxday guri kale ma gali kartid hadda damacad inaa gashana waxa waay dad baa taagan oo ku cayrsanaya elevatorkii kula galahaya albaabadii waa furan yihiin oo waxa loo dhigay waxyaabaha lagu celiyay qofkii raba iska soo gali kara qofkii raba ka soo bixi kara oo horta wax la dhaho security ma jirto guryahaana 2 qof oo waxay yihiin aan garanaynin oo xafiiska u fadhiya maahane wax leh iyo wax lala xiriiro oo aan garanaynaa inaba haba yaraatee ma jirto marka anigaygaan la hadlaya khamiistii la soo dhaafay baa waxa igu dhacday adeeg baan aaday adeegii baan soo adeegtay gurigayga baarkinkiisa soo galay gurigayga baarkinkiisana iyo albaabkaygana waxa u dhaxeeya ilaa 3-4 tilaabo u dhaxaysa markaan saa uga soo degay gaarigii oo dhinaca kale u wareegay oo isleeyahay alaabtii soo degso baa waxaan arkay 2 qof oo ila taagan waa aan shakiyay dhaqaaq baan isiri guriga waxba alaab hadeegsana guriga gal dhaqaaqi aan dhaqaaqay baa waxa la igaga dhuftay bir madaxa la igaga dhuftay
meeshii baan ku suuxay oo ku dhacay isla mar ahaantaasna baabuurkaygii bay la carareen teleefoonkaygii bay iga qaateen oo la carareen anigana dee isbitaal baan galay aad baan u dhigbaxay alxamdulilah ilaahay waa ii fududeeyey marka halkaan waxaan dhambaal uga dirahayaa ilaa iyo heer aqalka sare ee maraykanka madaxdeenna annaga aan dooranay oon codkeenna siinay oo maaragtay ku jira aqalka sare ee madaxda iyo ilaa iyo city council waxaan u dirahayaa hadda waxaa madaxda u tihiin waa annaga waxa codka ini siiyey oo ini doortayna waa annaga oo aad maaragtay halkaa aad ku tagteen ma garatay waa dadkiina marka waxaad ogaataan inaad aqalkii sare joogtaan inaad maaragtay aad city council aad tihiin meel kasta aad madax ka tihiin khaasatan ilhaan cumar oo joogta kongareeska maraykanka ilhaan cumarey halkan waxaan kaala hadlahayaa aniga oo hooyo soomaaliyeed ah adigoo congress women ah oo matalaysa Somali community in hoostaadii nalagu cunay in hoostiinii nalagu cunay oo nala baabi'iyay oo waxa nalagu cayrsanayo oo nalagu dilayaan ayna wax kala ahayn ee ay tahay naftayada iyo maalkayagii wax kale annagu waa shaqaysanaa subaxii salaadii baa guriga ka baxaa shaqo tagaa galabkii baan soo laabtaa cidna ma baadar gareeyo xaafadda wax ka socda kama warqabo waxa la igu dilay oo isbitaalka la igu dhigay oo dhiigayga lagu daadiyay waa baabuurkaygii iyo naftaydii oo dhibaatadaas ii soo gaartay. This neighborhood was terrorized by birita wuxuu rabaa nin kasta aan doorasho aan codkayga aan siiyo one vote can make difference hadaa codkayga rabtid oo Soomaali tahay maanta i caawi hadaa cod rabtid oo cadaan tahay madow tahay maanta i caawi because maanta waxa la raadsanayaa gabar Soomaaliyeed gabar muslim xijaabkayga cambuurkaygii alaygu raadsanayaa ani gaarigayga hadaa ani shaqaystay lacaga ani shaqaysta hadaan ku gatay waa igayga xoogaysa adiga bax soo shaqayso ilmahooda haday naga ceshanayn anaka si reason nahanay legally xabado waan qaadan karnaa waan iska celinaynaa ma fahmino marka sharcina uu noo qabtaa laakiin waxaan baaq u diraa nin kasta oo election vote rabo please maanta iisoo istaag i caawi haddii aan biri irideeda hadaa timaado vote kuma siinaayo siriga dadka ku jiro waa ogahay noorkan Soomaali badan kuma jirto laakiin waxaan arkayay runtii inay isu soo taraysay caqabadaha oo amni darada oo ka jira Park Plaza community security ahaan dhowr goor ayaan la hadlay maxay ahayd sida Minneapolis actually hataa waxaa isla kulanay Chief Orlando oo aan ka wada hadlanay arrimaha amniga ka wada hadlanay runtii waxaan ka wada hadalnay arrimaha xuquuqda aadanaha really waxaan iskula kulanay meelo badan oo shir lagu qabanayo oo booliiskana ay qabanayeen officer badan oo booliis kamid ah oo saraakiil sare oo booliis kamid ah waa wada kulanay as long as arrimaha soo dhan waxaa meel walba Soomaali waa ku dhibaatay hadaan dawlad lahaa ma sana dhibaataysanayn wallahi waa ka xumaada markaan Soomaali saan arko insha Allah ilaahay idin gargaar idinkana guuliyo gabanimo ilaahay idin gargaar insha Allah guuliyo gabanimo idin leeyahay ilaahay dhibaatada inka dul qaado insha Allah biidni ilaahay kareem meel walba oo joogan dhibaatada oo ku dhibaataysan Soomaali ha noqoto inta ha noqoto insha Allah ilaahay dhibka ha noqdo dul qaado ilaahay wadanka nabad waarta nooga dhig guuliyo gabanimo idin rajaa insha Allah